shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo telefishanka codka bariga Afrika uu mikrofoonka la dhex maray ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay hadalkii maalintii shalay ay ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee uu garowshiyaha raaligelinta uu kaga bixinayay xasuuqii dowladii Siyaad Barre u geysatay gobolada waqooyi oo hadda Soomaaliland waxaana shacbiga oo arintaasi ka hadlayna waxa daladoodii kamid ahaa marka hore mahadsantiin telefishanka codka bariga Afrika marka waxaan leenahay iminka hadalkan madaxweyne Farmaajo ka soo yeedhay ugu horeyn horta waxaan u aragnaa haddaan noo shacabka reer Soomaaliland awlaadii ay dhaleen ummadii lagu xasuuqay meeshaas waxaan u aragnaa marka hore hadal tiqtiqsi baan u aragnaa marka labaad waxaan leenahay madaxweyne hadda ummadda reer Soomaaliland waxa kaliya ee garowshiyo u noqon kara waa ictiraafkii oo imka aad ku dhawaaqdo maadaama adiga ay gacantaada ku jirto imka xukunkii ummadda koonfurta Soomaaliya ay gacantaada ku jirto waxaan kaliya ta garowshiyo aanu ka qaadan karnaa waa ictiraafkii imka aad ku dhawaaqdo madaxweyne saas man leen aad iyo aad baad wariyo micaad u mahadsan tahay adiga iyo telefishinka codka bariga Afrikaba Farmaajo loogama fadhiyo afis uu yiraahdo waxaan afinayaa reer Soomaaliland waxaan uga fadhinay xasuuqii ka dhacay Soomaaliland ee la ogaa caalamka oo dhan ogaa ee foosho xuma ee dawladii kaliitaliska ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay goboladii waqooyiga loo oran jiray waxay ahayd inuu yiraahdo ugu yaraan oo loogu soo dhawaan lahaa nimankii falalka geystay ee hadda nool ee madaxtooyada la jooga ee halkan dhow ee Puntland qaar joogan ee dibadaha qaar ay joogan inuu yiraahdo waa la soo qaqabanayaa oo halkan lagu qasaasaya lagu leeyahay ugu yaraan waxay noqon lahayd wax dadku iskugu soo dhawaado imika waxa laaliyo wuxuu soo dhaweeyay ma jirin dadka uu si kala fogeeyay mid iyada daba joogto oo oranaysa hadal yar oo waanu cafinay ku soo noqonaysa maaha kaliya waxay ahaydun inuu yiraahdo ictiraafkii baa nimanka aanu sii deynaya ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya raaligelintii uu bixiyay xalayto waxaan leenahay Soomaaliland haddaynu nahay waynu ka aqbalaynaa laakiin aqoonsiguna ku soo daro anigu waxaan u arkaa inaan garowshiyaha maanta loo baahnayn waayo Soomaaliland waa dawlad jirta calan iyo lacag iyo dadba maanta haysata maanta waxay u baahan tahay inay aqoonsi raadsato Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxaan leeyahay in ay ka garoodaan maayeen waayo Soomaaliland waxa jirta nus qarni in ku dhow 30 sano in ku dhow maanta marka inay ka garoodaan aqli gal maaha waxaan oran lahaa anigu تعدي الصومال كويس أنا معناه السياسة الدبدة إن الكديسان بعد أنا وحنا نوقف لنا تعدي أنت محمد سيد بن سوق أرسي ومنبه ننقل الشيء ما ترقب حيو وأيو أذكر الشيء بحنا أي هذا السياسة الدبدة أذكر على الناس الصومال فرماشة ما تلوجا مفردين إنه يراهو أبولا شايس بحنا يا أنا بروفيسور بان حاجة قانون كيجيا أبولا شايس واحد على وقف فوق إسرائيل بلا أبولا شايس بان كبحنا يا وحين موقتي كونفركم يصدرين قبيلكم يصدرين سيستم باد دلاي سيستم مو ليننا وحلاي رجيم كي كمدا رجيم دي أفريقيا كجري كوي وحوق بدنا أيات ديارة أركيسة كحي دي بيو رشيين حسوق أيو جيستين شلي وحلا جفلي فرماتشو هادو يستور بدأ إنه يهاي الله الصوماليات isoo ku hadlaya madaxweynihii Soomaaliya kuwii ka haray ee maanta jooga dawladdiisa ku jiraan intooda badan ama adduunyada ha joogaane ha loo dhiibo maxkamadda Hague oo ha la furo aqoonsiga Soomaaliya isagu ma hayo waxna kama doonano waana ka xumay inuu yiraahdo weyn Cabdirasaaq Umar Micadawliyo telefishanka codka bariga Afrika Hargeysa.